الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. halkani waa masjidka weyn ee Hagia Sophia. Dadyowga aad muuqaalka ku arkaysaanna waxay isugu jiraan muslimiin, Kirishtaan, Allakood, Hinduus iyo weliba kuwa haysta diimo kale. Hagia Sophia waa mid ka mid ah goobaha ugu caansan adduunka. Si maalinle ahna waxaa u soo booqda halkani boqolaal kun oo qofood. Hagia Sophia haatan waa masjid kulansaday tawxiidka Islaamka, catabka Kirishtaanka iyo weliba sunnada Maansooniyadda. Dhab ahaantii waxaa halkani ku duugan sirar aad u fara badan, xogo aynan ogeyn badiba dadka caadiga ah. Sidoo kale waxaa halkani ku yaala goobo aan loo ogoleyn dadka caadiga ah. Si aan anigu galay si aan muuqaalkan idinku soo gaarsiiyo awgeed, ee fadlan ku soo dhawaada barta aynu ku leenahay YouTube-ka ee Caawiya Tube. Hagia Sophia waa kelimad Giriiga oo micnaheedu tahay xigmadii rabbaaniga ahayd. Taariikhdu kolka ay 532 ilaa 537 ayaa boqortooyadii Roomaanka bari kolkii uu hogaaminayay Justinius ka koobaad dhidibada u taagtay Hagia Sophia, iyadoo kolkaasi ahayd kaniisad iyo goobo boqorka cusub taajka loogu saaro. Dhismaha Hagia Sophia ayaa socday muddo 5 sano ah, waxaana dhisay dad tiradooda lagu qiyaasay 10,000 oo qofood. Materialiska ay ka dhisan yihiin darbiyada iyo weliba tiirarka Hagia Sophia waxaa laga keenay degmo ka tirsan degmooyinka gobolka Izmir, dalka Masar iyo weliba waqooyiga Afrika. Ilaa laga soo gaaray 29kii May 1453 miilaadiga, Hagia Sophia waxay ahayd kaniisad. Furashadii Istanbul uu furtay Maxamedul Faatix kadib waxay noqotay masaajid iyo goobo lagu caabudo Allah subxaanahu wa ta'ala. Salaadii ugu horeysay ee lagu dukadana halkani waxay ahayd salaad Jumco ah. Sidoo kale goobtani waxay ahayd goob ay boqoradii dowladda Cusmaaniya imaan jireen maalinta Jimcaha si ay salaad ugu dukadaan, dadkana ay u kala warqaataan. Hagia Sophia kaliya ma ahayn masaajid, ee sidoo kale waxay ahayd goob lagu barto diinteena suuban, oo caalimka waxa uu ku fariisan jiray kursigan aad arkaysaan. Xirtuna waa ay ku wareegsan jirtay. Mararka qaarna sheekhu wuxuu kursiga ugu fariisan jiray inuu dadka wacdiyo awgeed. Sidoo kalena goobtani waxaa fariisan jiray xirta iyo culimada kitaabada uu aqrido. Kolka aad fiiriso mixraabkana waxaad ku arki kartaa aayado Qur'aan oo lagu xardhay. Dhinacaha tiirarka ka taaganna waa tiirar ka samaysan shumac. Sidoo kale tiirarka garbahooda waxaa yaalo sanaadiiq lagu aruurin jiray jusaska Quraanka. Qof walibana halkaas ayuu juskiisa ka soo qaadan jiray, deedna wuu akhrisan jiray. Halkanina waa mimbar, waana goobtii uu istaagayay maalinta Jimcaha iyo maalmaha ciidda imaamka masjidka si uu codkiisa u maqalsiiyo jamaacada masjidka. Sidoo kale masaajidka waxaa ku xaran magaca Allah subxaanahu wa ta'ala, magaca suubanaha nabigeena sallallahu alayhi wa sallam, afartii khulafaa ur-raashidiin magacyadooda iyo weliba magaca Imaam Xuseen. Goobtanina waa goob qaas ah oo aan loo ogoleyn dadka caadiga ah inay galaan, waxaana ku sawiran gacanta boqorka Maxamedul Faatix oo fariskiisa ayuu la booday oo halka ayuu gacantiisa ku taabtay si ay calaamad u noqoto. Sidoo kale halkanina waa goobtii ugu horeysay uu ku dukaday Suldaan Maxamed Al Faatix. qaybta kore ee masjidkana waxaa ku daboolan quba dhulka u jirta 55 mitir, dhererkeeduna yahay 32 mitir. waxaana naqshadeeyay qubadani naqshadeeyihii iyo injineerkii weynaa ee Sinaan. waxaa ku qoran qubada aayad Qur'aan ah oo jawaab u ah 4 sawir oo ay Kiristaanku aaminsanaayeen malaa'igta ilaalisa cirka inay yihiin. aayadda Qur'aanka ay ku sawiranna waa Allahu nuuru as-samawati wal-ard مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور
يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. masjidka sidoo kale waxa uu leeyahay maktabad weyn oo ka dambaysa derbigan. waxaan haatan fuulaynaa goob loogu talagalay inuu ku istaago mu'aadinka si uu codkiisa u gaarsiiyo jamaacada masjidka. kadib golkii uu duugoobay muuqaalka Hagia Sophia 1847 ilaa 1849 ayaa Suldaan Cabdilmajiid wuxuu amar ku bixiyay in la dayactiro lana qurxiyo masjidka, isagoona casuumaad u diray naqshadeeye Talyaani ahaa laguna magacaabi jiray Jasper Fast si uu u naqshadeeyo masjidka, maadaama uu ahaa naqshadeeye caan ka ah dunida dacaladeeda. si naqshadeeyahani wuxuu derbiga ku qariyay calaamadda maansooniyadda, maadaama uu ahaa maansooni aad u weyn sida aad muuqaalka ka arki kartaba. sidoo kale wuxuu meel gees ah ku sawiray calaamadda Trinity-ga ee sharaxda jiritaanka saddexda ilaah. qaybta uu calaamadda maansooniyadda ku qariyay naqshadeeyahani waa qaybta uu boqorka ku tukan jiray, korna waxaa ka saaran calaamadii ama sumadii lagu yaqaanay dowla Cusmaaniya. sidoo kale calaamadaas Kirishtaanka iyo qoraalkan aad arkaysaanba waxay ku xardhan yihiin dahab dhexdiisa. haddii aad si gaar ah u fiiriso meeshaana waxaad arki kartaa meel suul la saaray oo Kirishhtaankii goobtan deganaa waxay aaminsanaayeen haddii aad meeshan suul saarto waxaad rabto waad helaysaa. sidoo kale saxankanina waxaa la aaminsanaa inuu caafimaadka sabab u yahay. waxaa kaloo meeshan yaalo 2 aashun oo iyagoo dahab ka buuxan nin tuulo deganaa meel ka helay, deedna dowladii Cusmaaniyiinta ayuu ku wareejiyay si loogu soo xasuusto amaanadiisa iyo daacadnimadiisa ayaana halkani loo dhigay. sidoo kale irdaha laga soo gala masjidkana waxaa ku xardhan sawiro ay aaminsan yihiin Kirishtaanku inay yihiin Nabi Ciise iyo hooyadii. daawade goobtani waxay ahayd masaajid muddo 481 sano ah, deedna sanadu goorta ay ahayd 1935 ayaa amar ka soo baxay dowladii uu hogaaminayay Mustafa Kemal Atatürk loogu bedelay masjidkii goob madxaf ah oo ay dadku soo booqdaan iyo keed lagu keediyo qoraalada iyo kitaabadii muslimiinta. kadib codsiyo fara badan oo ka yimid qaar ka mid ah shacabka Turkiga si Hagia Sophia loogu celiyo masaajid iyo isku soo baxyo fara badan ay sameeyeen dhalinyaro la baxday dhalinta Anadol ayaa 2014 waxa ay sameeyeen arin cajiib ah. dowladii Turkigana indhaha u furtay oo waxay baxsadeen shacaar ah soo qaado sijaayadaada oo kaale Hagia Sophia, oo waxay noqotay isku soo bax diimeed misana xoogan. waxayna jamciyadan shaacisay in 15 milyan oo saxiix shacab ah ay hayaan, dhammaantoodna ay rabaan in Hagia Sophia loo celiyo masaajid. se lama aqbalin codsigooda maadaama uu khilaaf ka imaan karay dadka kale oo iyagana rabo meesha inay sii ahaato madxaf. Benim için İslam demek. Yani İslam'ın kapısı gibi görüyorum. İnşallah bir yıl kaldı, bir yıl. Hagia Sophia'da açılacak. Bizim için çok kıymetli. O bizim için ganimet. O bizim için çok değerli. Daha önce ben geldiğimde, bundan 4-5 sene önceye geldiğimde müzeydi burası. Giremedim Hagia Sophia'ya. Bu güç göstergesi gibi bir şey. Yabancı devletlere karşı. Hagia Sophia olmak isteyen bir Müslüman ancak Hagia Sophia'yı cami yapar. sidoo kale 2016 ayaa wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta waxay qaadatay go'aan ah in Qur'aan lagu aqriyo bisha Ramadaanka waliba si maalinle ah madxafka Hagia Sophia, iyadoona qaadatay shacaar ah nala raadi habeen ka qeyr badan kun habeen. waxaana ka soo qayb galay munaasabadani dhalinyaro aad u fara badan. ugu dambeyntiina 2020 ayaa amar ka soo baxay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan loogu bedelay madxafkii Hagia Sophia masjid, oo mar kale ayaa la furtay qalbigii magaalada Istanbul lagana dhabeeyay riyadii ay ku riyoon jireen dhalinyaro fara badan oo muslimiin ah. Hagia Sophia, ey muhteşem mabed, merak etme. Fatih'in torunları bütün putları devirip seni camiye çevirecekler. Gözyaşlarıyla abdest alıp secdelere kapanacaklar. Tehlil ve tekbir sadaları boş kubbelerini yeniden dolduracak. İkinci bir fethi olacak. Ozanlar bunun destanını yazacaklar. Ezanlar ilanını yapacaklar. Sessiz ve öksüz minarelerden yükselen tekbir sesleri fezaları yeniden inletecek. Şerefelerin yine Allah'ın ve Hazreti Muhammed'in şerefine ışıl ışıl yanacak. Bütün dünya Fatih dirildi sanacak. Bu olacak Hagia Sophia. Bu olacak. İkinci bir fetih. Yeni bir basubadel mevt. Bu muhakkak. Bu günler yakın. Belki yarın, belki yarından da yakın. Zillet geride, şehadet ileridedir.
ve inşallah fetih yakındır. daawade faloogeeni iyo weliba barnaamijkeeni xasuusaha istanbul halkaan ayaan kusoo afmeeraynaa maanta inta aan barnaamijkan oo kale ama ka qiimo badan ku wada kulmi doonana waxaan idinkaga tegaynaa dunidu waa dulqaad dadaalkuna waa muhiim